فيلمك واد ولا ساحب ديال فيلم كانوا فراب نقد مؤسن وقل من الليست إنه هيد نقطة إهاد أما طبعا حتى سوبر هيد ونقطة سيفا كرتجيان بريليانت برفورمانس يسمى هذه مهن قمر جنمدي عالي ما أثر في الدور هذا وقعت السريلة ودميت قروح مال أسئلة دور ودانيت كم مقطع بل قاعدته كانت هذا في عن لكن فيلمك waxaan ku hormar horta ciladaha uu lahay laba cilad buu lahay cilada koowaad waxay tahay waqtiga aad loo dheereeyo waxay in la soo yareeyo oo 2 saac 25 daqiiqo 2 saac 20 daqiiqo laga dhig crispy oo la yareeyo meelo badan waxa ku jira maana yani fara badan laga yareeyo sababta 2 saac iyo cabaar oo socona 40 xogaad daqiiqo ay ka badan marka horta point koowaad waxay tahay filimka waqtigiis la soo yareeyo hadii la soo yareeyn lahay waa la yaabi lahay taas number 1 waa number 2 cilada kale uu leeyahay waxay tahay kala filimka halka saac hore oo dhanbo qabow waay waxay ahayd dabcan filimka inay sheekada isku dhaxayso soo kun gar xataa hadaysan halka saac hore karkar ka dhigeen inay isku dhax darto kala bar markuu filimka gaaralo filimka dab iyo holac noqonaa inta kale qabow marka waxay aad gabadhan isku dhax dar sheekada xitaa inta wax ka soo qaad inta alaabta la isku habeynaa markaas filimka magic uu noqon lahay dadka marka waa ku caadisayaan ma aragtay hal saac oo qabow ina fiilsid way aragtay si kanaab dambe u sugan adiga si fakar tagina taageerash waa laga yaab ku daacad laakiin dadka dhexdhexaadka ah way ku aragtay inay taas sameeyaan waana sababta uu filimku fashil ma isleeyahay qofka dadka soo daawada faktoora aad ahayn war waxaan caadis kaliya halka saac hore qof kasta waa ka joogo marka saasa keentay laakiin inta kale brilliant marka labadaas cilad meel loo dhigay labada ciladan ka waqtiga oo dheer oo aan loo baahnayn la soo yareeyay ahayd iyo hal saac oo qabow inta kale la filimka dab iyo holac waaye calaayta hal filimkan waxa waa Siva Kartagyan oo soo ku soo galay haday gabadha ku wadineed aan yaabi la filimku wuxuu ku soo galay asoo tareen wada ku socdo Ravi Mohan saareen wasiiri waxa saajidka intuu u galo asii ardaydiis dhalinyarada tareenka ee gubaan dadka ka badbaashaan ujeedkoodu wuxuu yahay dabcan u socdaan in luqadda dabcan aftamilka ay dadka adeegsadaan oo luqadda hindiga aan lagu qasbin filimka marka soo ku bilaabanayo tareenkaas iyo si asii Ravi Mohan isku garaacayaan farta uu ka goonay iyo baxsadka uu baxsaday iyo waaliyo filimku bilaawday waxa isdhahay kan waalida uu ku bilaawday maxaa dhacay maxaa xigay hal saac oo qabow xigtay Siva Kartagyan mid kamid dhalinyaradiis oo jecel luqadda in la dhiirigeliyo oo dhaqdhaqaaqa la wada ardayda kamid ah dab ku dhimanayo kadib go'aan wuxuu gaaray inuu joojiyo howlihii uu wado wuxuu dhaabis waay nin iska shaqaysto noqonaya oo dhuxushi waxaasi tareenka walaalkiisa wax baraa iskuul dhigta walaalkiisa xawaa kacdan wadwado marmaru la hadla filimka dhanbo engaging oo ku heenay malahan Ravi Mohan asigana wuxuu ku jiraa fal raadis dadkan dabcan si looga hortaga iyo kadib hal mar waxa dhacayo incident walaalkiisa uu ku dhimanayo dhacayso intuu walaalkiisa dhimanano waxa jirto mudaharaad sameeyay lagu shirqoolay oo Siva Kartagyan ku qasbay inuu mudaharaadka soo gaa walaalkiisa badbaadiyo teamku meesha ka wado then haddana waxa dhacaya anada mudaharaad kale oo walaalkiisa uu ku dhimanayo Ravi Mohan iyo teamka askarta ee dilaan markii meeshaas la joogo filimka elevationkiisa uu kaca markuu kaco wuxuu ku dhamaanaa si heersara marka kadib ninkan walaalkiisa ka dhintay dadkii waxa waa dhibaatada ugu weyn horta jirto waxay tahay ajandaha filimka looga hadlayo indii xornimo qaateen